أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة قرن أي نجوها بستي إلهينا سبحانه وتعالى وحب وجد شيدا. إلهي سبحانه وتعالى wixii uu sameeyay war raali baan ku nahay. waa in aynu dareenno inaynu addoommanahay loo taliyo. wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala inooga warramay inagoo muslimiin ah haddana in layna jirrabayo oo layna imtixaamayo. imtixaankaana qofka iimaankiisa lagu soo saarayo inta uu ilaahay ku kalsoon yahay subxaanahu watacaala. ilaahay fii suurati albaqara wuxuu inagu yidhi ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا لها مسلمين تا دبابها سجادة إذنك كلية إذنكم أردعن مالك وين وضلينا هاي hantida waynu wada leenahay, nafta waynu wada leenahay, saasaynu walaalo ku nahay. oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga warramay muslimku inuu ka damqado walaalka kale muslimka ah dhibaabihiisa. markaa dhibta soo gaadhay hantidii ku gubatay suuqa waaheen ee Hargeysa, ruux kastoo muslima hanti ka luntay weeye. ruux kastoo muslima maal ka gubtay weeye. maalka aa hayseen waan ognahayoo wax allaaliya wixii la idinla yimaadee qaadhaana waa bixin jirteen. masaakiinta waxbaa ka siin jirteen oo waa ku dadaali jirteen inay ilaahay sakadiisa ka bixisaan. iyadoo sidaa tahay baa haddana imtixaanku sidiisa u yimaadaa. walanabluwannakum bishayin min alkhawf. waa dhaar lawallaahi baan ku dhaartaye inaanu idin imtixaami doono bishayin min alkhawf. cabsi baan idinku imtixaami doonaa. waljuuc gaajaan idinku imtixaami doonaa. wanaqsi min alamwaali walanfus. iyo inay hoos u dhacdo maalkiinni iyo maxaanku dhaha ubadkiinni iyo ehelkiinuba qaar dhintaan ama xoolihiinu lumaan. intaba waa la idin marinaya. idinkoo muslimiin ah ayaa haddana sidaa la idin yeeli doonaa. waxaana rasuulkeenu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu mu'minku mumtaxan yahay oo la imtixaamo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray gabadh muslimada oo inankeedii dhintay oo qabri ka dul ooyeysa. nebigu wuu soo maray wuxuu ku yidhi isbir waxtasib, sabir oo ilaahay hortiisa wax dhigo. markaasa waxay ku tidhi iga tag wixii i gaadhay baan ku gaadhine. markaasuu nebigu muu sii handidina waa ka dhaqaaqay ila waa ruux murugeysane. dabadeed markuu ka tegey baa layidhi hoogtay ninkaad saa ula hadlaysay miyaad garanaysa? maya, rasuulkii ilaahay buu ahaa. way ka daba timi gurigiisii bay timi. waxay tidhi wax gaadh ah iyo wax askarahoo gurigiisa ilaalinaysay ma jirin. waan u galay bay tidhi. waan u cudur daarto waxaan ku yidhi nebi allow iga raali noqo maan ku garanaynin. hadal qaaliya buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi asabru cinda sadmati aluulaa. asabru cinda sadmati aluulaa. sabirku waa jugta ugu horreysa jawaabtaad ka bixiso. marka walaalaha hantida noo hayay, hantida waa noo hayseen. intaa ka cunaysaan mooye inta kalena waan idinla lahayn. waxaan idin leenahay sabirka hawaayina. sabirka hawaayina. ilaahii idin soo geliyey waa joogaa, waanu ina eegayaa. waxaa keliyahoo ina soo celinaya inaynu nidhaahno innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. haddaynu sidaa ku celcelinno ilaahay subxaanahu watacaala waynoo naxariisan, raxmaddiisaynu heli. ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum almuhtaduun. ilaahay raxmaddiisa inooga dambayn doontaa. ilaahay raalli ahaanshihiisaynu ku kasban doonaa. hidaayana waan ka heli doonaa. inna maca alcusri yusra. ha quusanina. laa taqnatuu min raxmat illaah. laa taqnatuu min raxmat illaah. laa taqnatuu min raxmat illaah. ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina.
إلهي مالكا إذن سوقلي مانتنا واجرا واجوغا dadaalkii aad samayn jirteenna waa taqaanin iyo dariiqii lacagta lagu dhalinayay ilaahay baa kartida iyo dadaalka iyo firfircoonida dadka aad kaga horeysaan ilaahay baa idin siiyey ilaahayna waa idin siyaadin doonaa haddaad sabirtaan sabra oo ha niyad jabina dadaalkana kordhiya waxaan leenahay dadka maanta hantidu u nooshahay war rag baa shalay qani ahaa maanta fuqara ah war ilaahay kaga cabsada oo intaynu isu nimaadno oo la isu wada yimaado sidii aynu isu caawin jiray si mugle ummadda ha loogu gargaaro ha loo gurmado oo faraqabsi ha la siiyo oo sakaatulmaalkii dadka maanta maalku u nool yahay guda iyo dibad ha looga soo gurmado xukuumadduna ha samayso guddi arrinkaa ka howlgasha guda iyo dibad account ha loo furo masaajidada ha laga hadlo tiifiyada ha la istaago arrinkaasi waa musiibo qaran meel kasta dadka muslimiinta ee jooga iyo inta inala dhalatay ee luqadeena garanaysaba albaabada ha loo furo dadka gacan qabsi iyo faraqabsi aynu u baadi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu